soo dhawow sawirkan idin muuqdo dadka qaar TikTok inay ku arkeen oo maleena waa Ummaloti wala Ummiloti iyo Rashid waa nin leh shirkad dadka ama meesha lagu xanaaneeyo dadka duqooshinka ama dadka duqa Rashid wadankan wuxuu ku imaaday qaxootinimo kadib wuxuu bartay Ausbildungka loo yaqaano Altbefliga xanaaneynta dadka duqooshinka ah kadib wuxuu bilaabay inuu ka shaqeeyo Altbefliga wuxuuna go'aansaday akhiiran inuu sameeyo Meister Weiterbildung inuu hore u sii barto xirfadii si asiga uu noqdo selbstständig qof iskiis u shaqeysta hada biqudratillah waa u fududaatay wuu sameystay Rashid 3 sano ka hor wuxuu bartay 3 sano ka hor hadda maanta la joogo 2022 ka micna wuxuu bartay Ummiloti waa maamadan sawirka idinka muuqdo Ummiloti iyo Rashid waxay soo gelin jireen fiidiyoyo qosol badan oo because dadka ani ka Xuseen ahaan ama ka Afgoyaani ahaan waa fiirsan jiray waana ku farxi jiray calashan way iga qosolisiin jireen erayada qaar ay ku hadlayso xitaa waxay ka sheekeyn jirtay dadkii hore say u noolaayeen ayadii ninkeeda waxay leedahay ani asi hal sirna wada seexan jiray calashan markii zaqin la sameeynaayo waa la kulmi jiray waa la sameeynayay kadibna qof walba sariirtiisi okay waxaan hadda isku dhigdhigay xilligaas ma ogoleena dhii jirtay okay asigan wuu ku qanacsanaa saaxiibkeeda almuhim Ummiloti adduunkan waxay faaruqday maalintii Isniinta ahayd ayadoo maalmihii damba xanuunsaneed oo isbitaal ku jirtay isbitaalka laga soo bixiyay la geeyay meel lagu xanaaneeyo oo indhaha lagu haayo almuhim Ummiloti waa baxday maalintii Isniinta Rashid wuxuu soo geliyay video asoo qiiroonayo oo alashan ka tegidda ay ka tagtay Ummiloti ku murugsan almuhim Ummiloti way baxday ayadoo diintan islaamka qaadanin ayadoo allihii qalqay kaligiisa caawudin ay adduunkan ka tagtay marka qof walbo alashan waxa noogu filan waxay tahay cibra qaadasho fiiri qoftan waxay jirtaa 94 sano ku dhow waxay dhalataa la sheegaa 1931 oo hadda 25 kana way dhimatay at least waa 94 sano 95 sano ku dhow waxayna ku baxday ayadoo maalin madaxeeda dhulka u dhigin Allihii subhanahu wa ta'ala ida abuurtay marka adduunyada ha ku dheeraato ama ha ku gaabanaato waa dhimanaysaa ma joogisid marka laakiin adduunyada inta joogtid waxa fiican in aad caawudid Allihii ku qalqay aadna siisid cibaado kaligeed inuu asiga leeyahay. Assalamu alaykum.